ma jiraan waxyaabo aad muhiim u ah waxyaabahaas oo aad u baahan tahay inaad samaysid balse aad dib u dhigaysid. ma jiraan waxyaabo aad og tahay in hadda haddii aad samaysid inay noloshaadu isbedelayso balse waxaad sugaysaa waqtiga munaasabka ah si aad u bilowdid waxyaabahaasi. haddaba sideed u joojinaysaa inaad sugtid waqtiga munaasabka ah si aad u bilowdid waxyaabaha muhiimka ku ah? sideed ku awoodi kartaa inaad wax walba ku samaysid waqtigooda, inaad wax walba ku bilowdid haddadan la joogo? آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل السلام عليكم. waad ku maasan tahay daawashada videogan. ku soo dhawow nolol cusub. magacaygu waa Iibisu Sakiin. wiil ayaa i soo weydiiyey, wuxuuna igu yiri ayuu wax walba aan doonayo inaan bilaabo dib ayaan u dhigaa, waxaana sugaa mar walba waqtiga munaasabka ah. maxaan sameeyaa? sideen ku joojin karaa inaan sugo mar walba waqtiga munaasabka ah si aan u bilaabo howlaha muhiimka ii ah, waxyaabaha aan ogahay inay noloshaydu muhiim u tahay, si aan noloshayda u horumariyo, si aan noloshayda u bedelo? maxaan sameeyaa? sideen ku joojin karaa inaan sugo mar walba waqtiga munaasabka ah? haddaba maanta waxaynu ka jawaabaynaa su-aashaasi. sideed ku joojin kartaa inaad sugtid waqtiga munaasabka ah? waxaad ku joojin kartaa 5 tallaabo. tallaabada koowaad, si kastaba bilow. ma jiro waqti ka wanaagsan waqtigan hadda aad joogtid. waxaad doonaysaa inaad iskuul bilowdid, bilow maanta. waxaad doonaysaa inaad wax qorid bilowdid, bilow maanta. waxaad doonaysaa inaad u sheegtid qof aad jeceshahay, u sheeg maanta. weligaaga ha sugin waqti munaasab ah. waqtigaasi munaasabka aad sugaysid weligiisa ma imaanayo. ku bilow waxa aad haysatid iyo meesha aad joogtid. u dhaqaaq maanta. haddadan la joogo bilow wax walbo aad ku fikiraysid, wax walbo aad og tahay inay noloshaadu muhiim u tahay, in ay tahay inaad samaysid, inaad mudan tahay inaad samaysid. haddaba waa inaad hadda bilowdaa. mana jiro waqti ka wanaagsan waqtigan hadda aad joogtid. tallaabada labaad, muuji diyaar garowga. jirkaaga si aad ugu caawisid inaad bilowdid waxyaabaha aad doonaysid waa inay jirkaaga ka muuqataa. midaasna maxaad samayn kartaa? waa in diyaar garow uu kaa muuqda. see ku samaynaysaa sidaasi? waxaad ku samaynaysaa inaad bedeshid deegaanka aad ku nooshahay, guriga aad ku nooshahay. waa in ay ka muuqataa inaad tahay qof diyaar ah inuu wax bilaabo. مثلا waxaad doonaysaa tusaale ahaan inaad iskuul bilowdid. haddaba waa inaad iskuulka raadsataa, waa inaad ka soo qortaa, kadibna samaysataa waqti ku go'an. waqtigaas oo iskuulka aadaysid, waqtigaad wax akhrinaysid, jawgaaga waa inaad bedeshaa, meeshaad ku nooshahay waa inaad bedeshaa, waa inaad samaysataa. waxaad doonaysaa inaad wax akhris bilowdid, haddaba waa inaad samaysataa maktabad, buugga aad rabtid inaad doonatid oo aad keensatid, oo aad miis iyo meel gaar ah waxaad ku akhris samaysatid. waa in jirkaaga uu dareemaa inuu isbedel uu socdo si uu kugu caawiyo inaad bilowdo waxaad doonaysid. waxaad rabtaa inaad wax qortid, inaad raastaa reference iyo muraajacada aad doonaysid, buugaagta aad doonaysid inaad wax ka qortid. waa inaad muujisaa oo aad keensataa waxyaabahaas oo dhan oo miiska ay ku saaran yihiin, waqti u samaysatid. markaas waxaad ku caawinaysaa jirkaaga, maskaxdaada in waxa aad doonaysid aad bilowdid. tallaabada saddexaad, xadid waqti. haddii aadan u samaynin waqti waxyaabaha aad doonaysid inaad bilowdid, iskuulka aad doonaysid inaad bilowdid, haddii aan waqti u samaynin oo aadan jadwal u samaysanin, jadwalkaas oo aad ku soconaysid maalin walba oo hortaada ku dhegnayn jadwalkaasi, aadan u jeedin mar walba, ma bilaabaysid. waqti u samee. waqtigaas ayaan bilaabayaa, waqtigaasna waan dhammaynayaa. waa in waqti ku xadidan yahay, hadaf ku xadidan yahay. marka waqtigaaga isku xadidan yahay oo u jeedid mar walba, waxay ku noqonaysaa xamaasad iyo dhiirigelin. mana ka istaagaysid waxa aad doonaysid inaad bilowdid, waad bilaabaysaa. haddaba u xadid waqtiga aad doonaysid. buug ayaan doonaya inaan akhriyo, waqti ayaan u samaynayaa. iskuul ayaan rabaa inaan bilaabo, waqti ayaan u samaysanayaa. waqtigaas ayaan bilaabaya ilaa bishaas ayaan wadayaa. waa in wax walba ay horteeda ay ka muuqdaan oo ay i xadidan yihiin. nafsadaada markaas ayaad awoodi kartaa in wax walba aad doonaysa aad bilowdid. marka waqtigu ku xadidan yahay, hadafka uu ku xadidan yahay, nafsadaada way u fududahay inaad ku dhiiratid oona bilowdid waxyaabaha mar walba aad dib u dhigaysid. mida afaraad, dooro saaxiibo wanaagsan. saaxiibadaadu aad ayay ku saameeyaan. haddaba
maxay yihiin saaxiibadaada ma waxay yihiin saaxiibadaada kuwa mar walba hoos kuu dhigaya kuwa mar walba kule iska dhaaf iskuulkaas ha aadin iska dhaaf wax akhriska kaale banaanka aadayna kaale waqtigaa iska soo dilayna maxay yihiin ma waxay yihiin kuwa ku dhiirigelinaya guusha kugu dhiirigelinaya horumarka kugu dhiirigelinaya mise waxay yihiin kuwa gadaal kuu jiidaya mar walba adiga waxaa tahay sida ay saaxiibadaadu yihiin qofkeena waxa iska bedelay oo kale waxay tahay buugaagta uu maanta u akhrinayo iyo saaxiibada uu maanta la sheekaysanayo haddaba midaas waa inaad ogaataa saaxiibada waxay kugu yeelanayaan saameyn aad u weyn oo aan xad lahayn si fiican u dooro saaxiibadaada dooro saaxiibo kugu dhiirigelinaya waxbarashada kugu dhiirigelinaya hadafkan aad doonaysid iskuul ayaad doonaysaa inaad bilowdid saaxiibadaada waa inay noqdaan kuwo sidoo kale ayagana doonaya inay waxbartaan waxbarashada jecel iskuulka doonaya laakiin aniga waxaan doonayaa iskuul inaan bilaabo saaxiibadeena waxay yihiin kuwo wareega iska jecel waxbarashada aan jecleen wax akhriska aan jecleen maxaa noqonaya waxaa noqonaya sidoo kale waa mar walba aan damco inaan iskuulka aado waxay leeyihiin maxaad iskuul aadaysaa beri ayaad aadaysaa hadda isku soo qoran marka ayaad bilaabaysaa waqti ayaa ka badan soo bax maanta waxaan aadaynaa meeshaas ciyaartas ayaan soo daawanaynaa meeshaas ayaan aadaynaa sinimadaas ayaan aadaynaa waqtiga sidaas ayuu kaaga lumayaa mana bilaabaysid saaxiibadaada si fiican u dooro si aad u awoodid inaadan sugin waqtiga munaasabka ah oona wax walba ku bilowdid waqtiga loogu talagalay mida shanaad ka tirtir qaamuuskaaga beri maxaa sabab u ah inaynu wax walba dib u dhigno maxaa sabab u ah inaynu sugno waqtiga munaasabka ah waxaa sabab u ah beri dhammaanteen waxaan isku haleynaynaa beri ayaa imaanaysa beri ayaad bilaabaysaa iskuulkaasi koorsadaas beri ayaad bilaabaysaa wax akhriskaas beri ayaad bilaabaysaa soo maahan haddaba beri ha ku tashanin beri weli lama gaarin adiga daqiiqadan ayaad haysataa maanta aad joogtid ayaad haysataa wax imaanaya war uma haysid aniga ma ogid adigana ma ogid qof og ma lahan beri in la gaarayo in kale haddaba beri oo dhan qaamuuska ka tirtir noloshaada waxaad ku xagtaa ood ku dhaqda ood ku dhaqantaa mar walba maanta wax walba maanta ayaan samaynayaa daqiiqadan ayaan noolahay daqiiqadan ayaan samaynaya wax walba aan doonayo iskuulka aan doonayo daqiiqadan ayaan aadayaa maantada ayaan isku soo qorayaa wax akhriska maantada ayaan bilaabayaa maanta ayaan u diyaargaroobaya maanta ayaan la imaanaya wax walba aan doonayo haddaba waa inaad beri qaamuuskaaga ka saartid beri waa yadadiilada dadka aan guusha doonaynin waa meesha ay ku nool yihiin dadka caajisiinta ah dadka aan doonaynin inay noloshooda horumariyaan dadka aan doonaynin inay magacooda waariyaan dadka aan doonaynin inay meel sare gaaraan beri meel iska dhig dadka guusha gaara waa dadka ku nool daqiiqada ay joogaan midaasna uga faa'iidaysta sida ugu fiican noloshooda ku horumariya ku qaata koorsooyinka wax cusub ku barta mar walbana nafsadooda ku haya horumarin joogto ah ogow mar walba duruuftaada adiga ayaa ka xoog badan wax walba ay xaaladaadu tahay wax kastoo hadda aad dareemaysid waxaad ogaataa inaad awoodid inaad hadda bilowdid waxyaabahan aad dib u dhigaysid waxaad sugaysaa waqtiga munaasabka ah ha sugin waqtiga munaasabka aad sugaysid wuxuu imaan doonaa oo keliya marka adiga aad la timaadid ficil marka adiga maanta aad u dhaqaaqdid waxyaabahan aad dib u dhigaysid iskuulkan aad dib u dhigaysid maanta aad isku soo qor koorsadan aad dib u dhigaysid maanta bilow buuggan aadan akhrinaynin aad dib u dhigaysid mar walba maanta bilow inaad akhrisid haddaba waa inaad ficil la timaadaa waa inaad tallaabada ugu horeysa adiga qaadaa jooji dib u dhigidda jooji inaad sugtid waqtiga munaasabka ah waayo waqtigaasi weligiisa ma imaanayo waqtigaasi waxaa ku nool dadka aan doonaynin inay guusha gaaraan dadka aan doonaynin inay riyooyinkooda ka dhabeeyaan balse dadka leh hadaf sare dadka doonaya inay magacooda waariyaan inay riyooyinkooda ka dhabeeyaan kuma noolaanayaan waqti munaasaba inay sugaan balse waxay ku bilaabayaan waxa ay haystaan waxayna ka bilaabayaan meesha ay markaasi joogaan kadibna waxay gaarayaan meel aad u sareysa ha hilmaamin weligaaga ku noolow mar walba nolol farxad leh nolol jacayl leh nolol cusub aad ayaad u mahadsan tahay افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تقل لوحدي
السبيل أنت بالتحدي